رئيسل وزراء حمزة عبد بري ayaa maanta soo xiray shirka 35aad ee guddiga siyaasadda ciidanka heeganka bariga Afrika ka oo maalmihii la soo dhaafay ka socday magaalada Muqdisho. Kalfadhigan oo socday 6 maalmood isla markaana arrimo muhiim ah looga hadlayay ayaa soo maray heerarkiisa kala duwan. Waxaana maalmihii hore shirka ka qayb galay oo kulamo gaar ah yeeshay guddiga qobarada iyo guddiga taliyaasha ciidamada qalabka sida ee dalalka xubnaha ka ah EASF. maanta waxaa ka qayb galay shirka wasiirada gaashaandhigga dalalkan waxaana looga hadlayay qodobadii laga soo saaray kulamadii hore. wasiirka gaashaandhigga xukuumadda federaalka ee Soomaaliya Axmed Macalin Fiqi ayaa ka mahad celiyay doorka dawladaha Afrika ee Soomaaliya ka caawiya nabadgelyada waxaana uu booriyay ama uu dalalkan ku booriyay joogtaynta midnimada wada shaqaynta iyo isla xisaabtanka si ciidanka heeganka Afrika ay u noqdaan kuwo awood u leh ka jawaabidda caqabadaha amniga gobolka. waxaan ku faraxsanahay Soomaaliya inaan sanadkan ahayn shirgudoonka organkan muhiimka ah laba shirna in lagu qabtay magaalada Muqdisho oo si nabadgelyo ku dhacay. waxaan rabnaa inaan ka mahad celino ciidamada AUSOM oo ATMIS la dhihi jiray sanadkan AUSOM loo bixiyay oo runtii guusha aan haysano qayb ka mid ah ansixiyay saakana waan ku celinay. Soomaaliya iyo shacabkeeduba waxay grateful u yihiin waxay ka mahad celinayaan abaalkii loo galay oo Afrikaanka gobolka aan kula noolnahay oo walaalaha bariga Afrika gaar ahaan dawlado ay ka mid yihiin Uganda oo soo horeysay Burundi oo runtii nafafkooda nafafyaal badan halkan ku waayay Ethiopia, Djibouti, Kenya iyo dawlado kale oo booliiska keenay iyaguna kuwaasoo runtii dhufaysyada ciidankeena kula jiray nala dhimanayay nala dhaawacmayay. abaalkaas dadka Soomaaliyeed way hayaan dawladda Soomaaliyeedna way haysaa. Ra'iisul Wasaaraha Xukuumadda Federaalka ee Soomaaliya Mudane Xamza Cabdi Barre ayaa adkeeyay doorka Soomaaliya ee xoojinta nabadda amniga iyo iskaashiga gobolka bariga Afrika. waxaana uu carabka ku dhuftay muhiimadda ay leedahay wada shaqayn dhow oo dhex marta dalalkan si loo wajaho caqabadaha amni ee ka jira gobolka loona adkeeyo dadaalada nabad dhisidda iyo ka hortagga colaadaha. Your presence in Somalia is both symbolic. joogitaankiinu Soomaaliya waa mid astaan iyo macno weyn u leh. tani waxay caddayn u tahay horumarka ay Soomaaliya ku tallaabsatay iyo kalsoonida ay dalalka gobolku ku qabaan geedi socodka joogtada ah ee ku wajahan nabadda xasiloonida iyo soo kabashada. sidoo kale waxay adkeynaysaa muhiimadda wadajirka xooggan ee gobolka kaasoo ku dhisan ixtiraam madax bannaanida iyo mas'uuliyadda wadaagga. maalmihii shirku socday waxaa si qoto dheer looga dooday xaaladaha amniga gobolka, hirgelinta go'aamadii hore, casharada laga bartay dhoolatusyadii dhowaan dhacay, natiijooyinka hantidhowrka iyo soo jeedinta qorshe hawleedka ururka ee 2025 iyo miisaaniyadda iyo qorshe hawleedka 2026. Soomaaliya oo sanadkii la soo dhaafay haysay guddoonka guddigan ayaana maanta si rasmi ah ugu wareejisay dawladda Uganda. Axmed Cali Kaahiye, warbaahinta qaranka, xafiiska Ra'iisul Wasaaraha.